رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله إيانا وإياكم من الفتن والضلالات. إخواني في الله waxaan ku soo guda jirnay arrimihii rabadaanta iyo hawsheedii nidaamkeedii iyo wixii ummadda Allah subxaanahu wa tacaala uu khayr uga dhigay iyo wuxuu Allah rasuulku uga dhigay calayhi salaatu wasalaam ilaahayna uga dhigay. maanta waxaanu guda geli doonaa makruuhaadka ay leedahay markaa bisha rabadaan. culammadu waxay tiraahdaa kathratu aljidaal walkalaam walmakruuh, dood fara badan iyo mujaadalada yacan waa muranka faraha badanna qofku inuu galo muran aan faa'iido ku jirin oo diinta ilaahayna subxaanahu wa tacaala faa'iido ugu jirin, soonkiisana faa'iido ugu jirin. walkalaamu almakruuh iyo hadalka kiisa xun ee makruuha ah ee marnaba alla subxaanahu wa tacaala rabadaan iyo rabadaan la-aanba ilaahay raalli aanu ka ahayn inuu haddana si uu qofku ku waramo ku hadlo ku sii hadlo waxay noqonaysaa maxaaheeday mid aad iyo aad uga fog xaqiiqada iimaanka iyo islaamnimada iyo midnimada. wamaa yaxrum hadda wixii la xarimay maxaa ka mid a haddaba min alkadib beentii iyo walghiiba iyo xantii iyo wanamiima iyo ummadii iyo magaranaysaayay musiibo lagu dhex noqdo dhexdoodii namiimnimo iyo magaranaysaa isku dirdir iyo waxaa lala dhex wareego. washat iyo qofkii iyo ummadii la caayo oo la aflagaadeeyo ama si guud ha loo aflagaadeeyo ama si khaas ama si magaranaysaa fardi ha loo aflagaadeeyo iyo aflagaadadii. walfaxsh iyo ummadii xumaan lala dhex galo walciyaadu billaah, xumaantii lala dhex galayay ama magaranaysaayay ummadii wax walba oo xumaan ah lala dhex galo ama wax kaloo khaas ah lala dhex gala. faxshigiyo iyada laftigeedii la faafiyo ama lala dhex fadhiisto ama loo daahiriyo ummadii loo muujiyo. waxaana arrimaha inoo cadaynaya liqowli rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam, hadalkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ina tusinaya haddaad sooman tahay intaasna aad ku dhaqmayso inaanu soonkaagu wax alla wax arina iyo wax hawla midna aanu ka lahayn ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala. nabi maxamed wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man lam yadac qowla azuur walcamala bih waljahlu, qofka aan ka tegin hadalka maarta kiisa xun iyo camalfalkiisa lagu camalfalayo iyo jahliga uu markaa ummadda loo muujinayo
falaysa allahu xaajatah ilaahay subxaanahu watacaala xaajo kama laha ama ma garanaysaaye arin iyo dan uma laha fii an yaddaca inuu qofkaasi uu ka tago dacaamahu wa sharaabahu inuu cuntadiisii iyo cabitaankiisiiba uu ka tago. lianna maxaa yeelay wixii kale ee lagaa nahiyeyba waad ku dhex jirtaa. cunto iyo biyo kaliya ama sharaab kaliya aadaysana wax alla wuxuu faa'iido ka yahay habeeraatee ma jirto, bal waxaad noqonaysaa wax aan ma garanaysaa soonkiisu aanu xitaa aakhira wuxuu u tari doonin, lianna umuurihii lagu yidhi ka haroo dhanba haddii aad ku dhex jirto. laakiin cagsigeed haddaad samayso ood ka hadho biidni illaahi tacaala allah subxaanahu watacaala soomkaaga waa kuu barakaynaya. allah subxaanahu watacaala waqtigiisuu kuu barakaynaya, oo allah subxaanahu watacaala cibaadadiisuu kuu barakaynaya, oo allah subxaanahu watacaala maalinta yowma alqiyaama ayuu kugu furanayaa biidni illaahi tacaala. waxaa xadiiskaana soo saaray akhrajahu albukhaariy fii saxiixih. imaamu bukhaari raximah allahu tacaala ayaa wuxuu ku soo saaray saxiixiisa xadiiskaas. inagoo markaa fiirinayna waxaynu ka faa'iidaynaa inaynu ka tagno hadalka kiisa xun iyo muranka, iyo inaynu ka tagno namiimnimada iyo beenta iyo ma garanaysaaye xanta iyo dadkoo lacaayo iyo xumaanta oo loo muujiyo ama loo horseedo. lianna haddaad xumaan ummadda horseedo aakhirana waa ku hortaala, weliba waanay ka dababaanta. wasanna sunnata sayi'a fa calayha qofka xumaan xun jeediya ama ummadda u jideeya ama qowl ha noqoto ama ficil ha noqotee fa calayh waa mid haysanaysa, bal iska dhaafa maalinta yowmi alqiyaamana ilaahay waa ku weydiinaya subxaanahu watacaala. lianna maxaa yeelay meesha aad fadhido, meeshaad taagan tahay, meeshaad socoto iyo meeshaad jiiftaba iyo dharkaaga iyo naftaada way kuu markhaati furayaan. wax alla wax ilahay agtiisa ka qarsoomaya habeeraatee ma jirto, walow waxa ugu yarba allaha ka dhigay. oo ilaahay baa kitaabkiisa inoogu caddeeyo yidhi idaa zulzilat ilardu zilzaalaha wa akhrajat ilardu adqaalaha waqaala alinsaanu maa laha yowmaidin u fiirsaada yowmaidin tuxadisu akhbaaraha biana rabbaka awxaalaha yowmaidin yasduru nnaasu ajsaatan liyaraw acmaalahum faman yacmal midqaala daratin faman yacmal waa maxal shaahidkaan u soconno wey faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal midqaala daratin sharan yarah. cidda samaysa wanaag ama sharaf ama ciis iyo maamuus walow darana ha leekaatee. darada waxaa la yidhahdaa tusaale ahaan marka darada culimmadu ay fasirayaan oo waxaan ishu ay qabato gacantuna aanay qaban weye. maxaa ka mid a tusaale ahaan gurigaaga haddii hadda tusaale ahaan uu daloolo oo meel uu ka daloolo korka sare saqafka sare, iftiinka markuu soo bixiyo waxa dhex marmaraya iftiinkaas yaree dhuuban ee uu soo bixiyey qoraxda ay ka soo saartay meeshaas, waxaa dhex marmaraya wax yaroo cad oo saa u duulduulaya. qaba haddaad istiraadana ma qaban kartid, ishuna way arkaysaa. wanaag kasta oo intaa leegood samayso aakhira waad arkaysaa oo ilaahay waa ka abaalmarinaya. waajibkeedaanu ilaahay ku siinaya insha allah biidni illahi tacaala. xumaan kasta oo intaa in leegood samaysana waad arkaysaa. hadduu ilaahay kaa cafiyana ilaah waa qafuur raxiim oo ilaahay kuu naxariisto. haddii ilaahay kuu ciqaabana waa xaq adigu aad samaysatay oo aad la timid ifka dushiisa, oo ilaahay baa kule markaa maalintaas iqra kitaabak kafaa bihi nafsika alyawma calayka xasiiba. akhri kitaabkaaga adigaa maanta iskugu filan, naftaada xisaabiye iyo xukun adaa iskugu filan. marka waxaa lagaa rabaa intayna taasi imanin inaynu ka waantoomno oynu iska ilaalina siduu allah subxaanahu watacaala inoo ilaaliyo. nabi maxamed baa lahaa calayhi salaatu wasalaam ixfad illaaha yaxfadk tajidu tujaahak. war alla subxaanahu watacaala xifdi oo ilaahay dhowr, ilaahay adigna waa ku dhowrayaa, weliba hortaadana waad ka helaysaa. maxaa daba alla subxaanahu watacaala aad ku dhowraysaa? maxaadse ka ilaalinaysaa? ilaahay waxaad ka ilaalinaysaa wax kasta uu kaa reebay inaad ku cadhogeliso ood la timaado. alla subxaanahu watacaala waxaad ku raaligelinaysaa wax kasta uu ku faray inaad qabsatood qaadatood raacdo oo aanad gaabin iyo qasri toona aanad lagugu arag dabiiciga iyo dabeecaddaas. ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ilaahay waddada xaqa inagu sugo oo ilaahay subxaanahu watacaala inaga dhigo kuwii ka faa'iidaysta.
marka ikhwaani fillah waxa inala gudboon inaynu aakhiradeenna aanu turanno, lianna maxaa yeelay adduunkan waa adduun yaroo gaaban oo marnaba aan meel laba aanad maaragtay ugu waaraynin, ood ka tegayso oo aad u tegayso markaa aakhira iyo camalkaagii aad hormarsatay. marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa biidni illaahi tacaala inuu ilaahay xaqa inagu sugo, diinteena ilaahay inoo wanaajiyo, camalka ilaahay inoo wanaajiyo, quluubta ilaahay saafi inooga dhigo. ilaahay subxaanahu wa tacaala dadnimada iyo iimaanka iyo islaamnimada ilaahay inagu dilo, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu nooleeyo, oo ilaahay subxaanahu wa tacaala inagu soo saaro. allahuma rabbana aatina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا من لدنك ورحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء دين يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحم منا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا واستر عيوبنا يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.